kulanti wacan daawadayaal meel walba daafaha caalamka aad ka joogtaan ku soo dhawaada wararka Soomaalida iyo YouTube channelkeena Captain K qodobada aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah nabadoon lagu dilay gudaha magaalada Muqdisho Ra'iisul Wasaare Roble iyo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland oo kulan gaar ah ku yeelanaya Puntland musharax Daahir Geele oo sheegay dib u dhaca doorashada inay mas'uul ka yihiin Farmaajo iyo Roble hay'adda xasaradaha adduunka oo ka digtay in ciidamada AMISOM ka baxaan gudaha Soomaaliya golaha ammaanka oo Muqdisho u soo diraya guddi qiimeynaya in Soomaaliya laga qaado cunaqabataynta hubka intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon ee wararka Soomaalida ee YouTube channelkeena Captain K fadlan daawada haddii ay tahay markii kugu horeysay subscribe dhe gambaleelkana furo si aad u noqoto daawadaha u horeeya ee hela wararka iyo warbixinadeena like-na saar muuqaalkan si uu dad badan u gaaro wixii fikrada ahna qaybta commentiga noogu mahadsanidin aynu ku bilawnay kooxa ku hubeysnaa biskoolada ayaa maanta waxa xaafada Gubta oo ka tirsan degmada Daynile ee gobolka Banaadir ku dileen mid ka mid ah nabadoonada ugu caansan degmadaasi iyaga oo dilka kadib goobta ka baxsaday nabadoonkan oo lagu magacaabi jiray Cabdi Gaabo Cali Jaamac ayaa xiliga la dilayay ku sugnaa gudaha gurigiisa oo ku yaala xaafada Gubta barwaaqo gaar ahaan agagaarka xoolo qalkii hore ee degmada Daynile mid ka mid ah dadka ku nool xaafada oo uu dilka ka dhacay ayaa sheegay in odaygan la dilay uu nabadoon u ahaa mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed isla markaan xiliga la dilayay uu si caadi ah u joogay hoygiisa ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa booliska ee ka howlgala waaxda barwaaqo ee degmada Daynile ayaa tagay halka uu dilka ka dhacay iyagoona meydka nabadoonka geeyay xarunta hay'adda dambi baarista ee CID-da ee magaalada Muqdisho waxaa maalmihii la soo dhaafay ku soo batay dilalka qorsheysan waxaana horaantii toddobaadkan xaafada Jungale ee degmada Yaaqshid lagu dilay gurigiisa dhexdiisa mid ka mid ah nabadoonada Soomaaliyeed halka degmada Dharkeelle isla toddobaadkan lagu dilay ganacsade lagu magacaabi jiray Cali Cabdiqaadir Muudey magaalada Garowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland ayaa waxaa la filayaa inay kulan gaar ah ku yeeshaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynayaasha Jubaland iyo Puntland ra'iisul wasaare Roble ayaa waxaa la filayaa in maalinta barita oo Sabti ah inuu u soo safar tago magaalada Garowe halkaasoo maalmihii la soo dhaafay kulamo gaar ah ku lahaayeen madaxweynayaasha Jubaland iyo Puntland ee Axmed Madoobe iyo Saciid Dani wararka laga helay ayaa sheegaya in qorshaha ahaa in madaxweynaha Jubaland uu maanta dib ugu laabto magaalada Kismaayo hase yeeshee ra'iisul wasaaraha oo ka codsaday inuu sugo inta uu ka imaanayo si ay kulan u wada yeeshaan ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Jubaland iyo Puntland ayaa kulankooda waxa ay uga hadli doonaan arrimaha ku saabsan doorashada golaha shacabka iyo sidii loogu gudbi lahaa caqabadaha hortaagan wararkan helayna ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweynayaasha Jubaland iyo Puntland ay ra'iisul wasaare Roble u gudbin doonaan dalabka ku aadan inay doonayaan in hal deegaan laga dhigo doorashada golaha shacabka ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa dhawaan socdaal ku tagay magaalada Dhuusamareeb waxaana madaxweynaha Galmudug uu ka qanciyay in la qabto doorashada 5 kursi ee golaha shacabka kuwaas oo deegaan doorashadoodu tahay Galmudug dhimasho iyo dhaawac ka dhashay qarax ka dhacay Bardaale qaraxana oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aasay waxa uu ka dhacay suuqa jaadka lagu iibiyo oo ku yaala degmada Bardaale ee gobolka Bay waxaana ka dhashay khasaaro dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyay waxa qaraxa ku geeriyootay 7 ruux halka 10 kalena ay ku dhaawacmeen kuwaas oo iskugu jira askar ku sugnayd goobta iyo dad shacab ah koobjooge ku sugan degmada Bardaale ayaa sheegay in goobta qaraxa ka dhacay ay ahayd meel mashquul badan isla markaana dadka ku dhaawacmay la geeyay isbitaalka degmada Bardaale ee gobolka Bay ciidamo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa tagay suuqa jaadka degmada Bardaale oo uu qaraxa ka dhacay iyagoona halkaasi ka sameeyay howlgallo dad badan lagu soo qabtay maamulka degmada Bardaale iyo laamaha amniga degmadaasi ayaan wali ka hadlin qaraxaasi dhinaca kalena musharax madaxweyne Daahir Maxamuud Geele ayaa sheegay in maanta ay ku beegan tahay sanad ka hor markii midowga musharaxiinta kulankii ugu horeeyay ku yeesheen magaalada Muqdisho kaasoo ay ku doonayeen qabashada doorashada xor iyo xalaal ah musharaxan oo wareysi siiyay idaacadda BBC-da ayaa waxa uu sheegay in hal sano kadib ay socdaan dib u dhacyadii lagu hayay doorashooyinka dalka taasoo keentay in dhowr jeer dib u dhacaan wuxuu hadalkiisa uu ku dhaliilay kii ay u dhacday doorashooyinka aqalka sare oo ay qabteen dowlad goboleedyada marka laga reebo maamulka Hirshabelle kuwaasoo uu ku sheegay inaysan ahayn kuwa u dhacay si daahfuran isla markaana walaac la xiriira ay u dhacayaan doorashooyinka golaha shacabka waxa uu ku eedeeyay dib u dhaca
doorashooyinka inay sabab u yihiin madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka. Hay'adda xasaradaha adduunka oo ka digtay in ciidamada AMISOM ka baxaan gudaha Soomaaliya. Hay'adda caalamiga ah ee ka waranta xasaradaha adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo ICG ayaa ka digtay hubinti la'aanta mustaqbalka ciidamada AMISOM xilli uu howlgalka uu ku eg yahay 31 Sebteembar sanadkan 2022. ICG ayaa aaminsan in ciidamada AMISOM oo ka baxa Soomaaliya ay shaki la'aan kooxda Al-Shabaab u ogolaan doonto inay la wareegaan inta badan gudaha Soomaaliya. Waxay sheegtay in deeq-bixiyaasha taageera AMISOM ay rabaan in dib u habeyn iyo in la dhimo tirada ciidamada AU iyo dowladaha ciidamada ku deeqay raadinayaan maaliyad la isku halayn karo in howlgalka la sii ballaariyo. ICG waxa ay ku talisay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu kordhiyo waqtiga AMISOM 6 bilood. Saaxiibada AMISOMna ay waqtigaasi ku sameeyaan qorshe dib u habeyn ku turjumaya 5 sano ee soo socota soo inay dhaqaale ka raadinayaan qaramada midoobay, Midowga Afrika iyo kuwa kale si wax looga qabto gaabiska ku socda howlgalkan. Howlgalkan Midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM ee qaramada midoobay ayaa ku eg 31 Sebteembar 2022 ee sanadkan. AMISOM ayaa Soomaaliya ka shaqeynaysay muddo 14 sano ah. Dhanka kalena wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda xilgaarsiinta Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa maanta waxa uu ka hadlay xaaladda amni ee xilligan, qorshaha ugu degsan wasaaradda amniga iyo talooyinka dhanka amniga ah ay u qaadayaan. Waxa wasiirku qiray in weli ay jiraan caqabado dhanka amniga balse wax laga qaban doono ayna socdaan qorshooyin lagu tayeenayo ciidamada booliska iyo kuwa ka howlgala gudaha magaalada Muqdisho si ay u xoojiyaan amniga caasimadda maadaama lagu guda jiro xilli doorasho. Wasiirka oo ka qayb galay barnaamij ka baxaya warbaahinta waxa uu ku sheegay in maalmihii la soo dhaafay amniga caasimadda si weyn loo adkeeyay isla markaana ciidamada ay gacanta ku dhigeen kooxo burcad ah oo dhac u geysanaya shacabka Soomaaliyeed. Wasiirka oo ka hadlayay hubka sharci darrada ah ee lagu qabto gudaha magaalada Muqdisho ayaa waxa uu faray laamaha amniga inay ka hortagaan cid kasta oo hub sharci darro ah ku dhex qaadata gudaha magaalada Muqdisho. Warkan ka soo yeeray wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda xilgaarsiinta Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa ku soo aadaya xilli habeenadii la soo dhaafay ciidamada kala duwan ee dowladda Soomaaliya ay howlgallo kala duwan ka wadeen gudaha magaalada Muqdisho. Ugu dambeynna golaha ammaanka oo Muqdisho u soo diraya guddi qiimeynaya in Soomaaliya laga qaado cunaqabataynta hubka. Xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa magacaabay guddi loogu talagalay inay qiimeeyaan sida dowladda Soomaaliya u dabagashay iyo waxa ay ka qabatay hubka sharci darrada ah si cunaqabataynta hubka looga qaado Soomaaliya. Guddigan oo ah mid madax bannaan ayaa warbixin ka keeni doona qiimeynta ay sameynayaan sida uu warkan ku sheegay wareysi uu ku bixinayay danjiraha Soomaaliya ee u fadhiya qaramada midoobay Ambassador Abuukar. Soomaaliya ayaa muddo ka badan 30 sano waxaa saaran cunaqabatayn dhinaca hubka ah, waxaana danjire Abuukar uu sheegay in guddiga la magacaabay bilaha soo socda ay imaan doonaan magaalada Muqdisho iyagoona u kuurgali doona heerka la dagaalanka hubka sharci darrada ah ee dalka Soomaaliya. Sidoo kale waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray in dowladda Soomaaliya marka ugu horeysa ku guuleysatay inay la socoto ka loo keeno ciidamada AMISOM ee ka howlgala dalka, isla markaana dowladda Soomaaliya la siinaynin lambar sireedka hubkaasi si aan cid kale gacanta loogu gelin. Toddobaadkan ayay ahayd markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay muddo 1 sano ah ku kordhiyeen cunaqabataynta dhanka hubka ee saaran Soomaaliya iyagoona walaac ka muujiyay sida ay sheegeen hub aan la ogeyn meel uu ka yimid oo gacanta u galay kooxda nabadiidka Al-Shabaab. Guud ahaan waa naga intaa wararka Soomaalida ee YouTube channel-keena Captain K. Tan iyo warka xiga intaan ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.